muwaadin Soomaaliyeed in si kas ah ciidanka dawladda gaar ahaan booliska u toogteen oo taliyay meeshaas joogana amarka uu bixiyay xildhibaan Faa'iiso goobjoog ahayd ayaa ka warrami doonta laba kana lagu dhaawacay dad kale oo dhaqdhaqaaqayaal ahna halis la geliyay shacabkaas deegaankaas la socotiin in badan waxay loolan iyo iska caabin adag kula jireen dhulboobka waxay ahaayeen deegaanka kaliya oo nidaamsan oo guddiyo iyo aragti iyo abaabul wax isaga caabiye leh oo deegaanka dadka shacabka iyo odayaashooda iyo qaar ka mid ah xildhibaanadooda kulligood ma dhihi karo ee isku duubnaayeen oo iska caabinayeen dulmiga barakicinta dawladda oo ama taliska oo madaxweyne xashiq hogaamiyo waxay ay u arkayeen inay halis ku yihiin inay dhiirigeli karaan deegaanada kale si gooniya markasta loo target gareynayo hadaf looga dhiganayo si loo jabiyo qabkooda si loo jabiyo iska caabintooda si dadka kale ay cibro ugu noqdaan maalin kasta habeen kasta ciidana la geliyaa dadaa laga dhaawacaa dadaa laga soo xiraa laakiin dad aanan ka daalin waxay ahaayeen istaragalka ama kifaaxa ama iska caabintii halganka igu jira inay xuquuqdooda ay dhacsadaan way fiicnaa lahayd dadka kale ee deegaanada kale ah ee iyagoo guryahoodiisaan sheegnay oo annagaan xildhibaano u ahayn oo madaxweynaha loogu tegey ee sharci uu leeyahay lacag ka bixinayo inay intay is abaabulaan dulmiga iska dulqaadaan way fiicnaa lahayd intii ma aha dhul dawlad leedahay dhul asaga uu leeyahay oo sharci ah yaa waxaa looga qaadayaa baad wiilow madaxweynaha adeer u yahana ka qaadaya oo dhulkaa laysoo siiye leh waxaan ku arkaa social mediaha xildhibaanada dhulka la siiyo oo mucaaradka dhaliilaya mudaaharaad nabad waa niman dhul soo wada qaatay iyo gabdho dhul xaaraan ah oo dad masaakiina oo marasa oo dan yara laga kiciyay intay soo qaateen ee facebookyada taagan yihiin kuwaas damiir ma leh bini aadankana waxaa la yidhi hadday damiirka ka dhinto waa dhintay nin shaacira wuxuu yidhi inama alumamu akhlaaqun maa baqiyat inhumuu dahabat akhlaaquhum dahabuu ummadaha nationska qaranku dadku waa akhlaaq dhismo iyo jidad iyo laamiye ma ah waa qiyam waa values dadku waxay ku taagan yihiin maxaad qiimay dadki waxaas akhlaaq iyo qiyam iyo value baanta inay baan u yaqaanaan runta inay run u yaqaanaan xaaraanta inay xaaraan u yaqaanaan xalaasha inay xalaal u yaqaanaan dilka inay xumaan